عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعشر كني أفراد وصي بلو أن يهريو قريدون مركو قوريسا حروفته لبا لو كلا قيبية قيب حرف كستبا مركو تاغين هاي ساهرت مركو تاغين هاي حرفك لبا دعبو كلا ليه دنكن يا دنكن دنكن ومدي دنكن وبدح ومحان مدي قولي محان بدح قولي ما كان أنيقو أنكو سيتشي حرفكي وانو اسكسو هرشيدنا أنيقا أهان شخصية مديك تيدو دنكي حكتا أما أديقا با مديك تيدو دنكي حكتا مديك تيدو حقا ويني حكتا مديك تيدونا ويني حقا حكتا كأني أهان أخرنا ينكارلي أما كان برانيا إرقو مركو ساي هاي دنكا waxaan tirtirayaa insha allahu tacaala waxaan tirtirayaa dhanka aanu dhanka wax kaga dhigsanayo waxaan tirtirayaa dhanka uu wax lagaga dhijin karo okay dhanka waxa lagaga dhijin karaa dhankan laakiin dhankan حروف قيبتود ويا لي حرف دنكا waxa laga madajin karo lixda xarafi waxa raba hadda inaan ku sii baro lixda xaraf ee aan dhankan waxba laga dhajin karin xaggan aan waxba laga dhajin karin laakiin xaggan waxba laga dhajin kara sax waad ku dhajin kartaa wax kastaba laakiin dhankan waa mamnuuc waxba laga dhajin karo waliba aan ku qaado midabka casaanka sidoo kale balad dhankan waxba laga madajin karo lixda xarafi waxay yihiin alifka oo kan hadda i hortaagan ah daalka daalka ra'da za'da iyo wowga lixda xarafi waxa waajiba inaad baratid waad ka baratid kuwa kale waxayna ka mid yihiin xuruufaha aan ogolayn in dhankan wax laga dhajiyo xaraf kastaba dhankiisa wax kaga dhajin kartid raada dhankan wax kaga dhajin kartid daalka waxa xagga dhankan kaga dhajin kartid daalka xagga wax kaga dhajin kartid alifka xagga wax kaga dhajin kartid laakiin xaraf kastaba wuu ogol yahay inaad dhankan kaga dhajisid kan waa ogol yahay daalku xaggan waa laga dhajin karaa daalka xaggan waa laga dhajin karaa ra'da xaggan waa laga dhajin karaa za'da xaggan waa laga dhajin karaa wowgan xaggan waa laga dhajin karaa marka waxaad ila fahantaa kaliya lixda xaraf ee aan rabo inaad meel ku qoratid ee ah inaan dhankan aan wax kaga dhajin karin laakiin dhankan aad wax kaga dhajin kartid lixda xaraf waxa weeyaan alif waa hadda waa saddex lixdii xaraf aan hadda dhigay alifka oo qaabka loo qorayo daalka iyo daalka ra'da za'da iyo wowga intaasi way ka soocan yihiin qaabka loo qoraya okay aanu galo xarafka ugu horeeya alif ayaa loo yaqaanaa ama a waa loo yaqaanaa haddii aan kor dhigo waa a haddii aan hoos dhigona waa i haddii aan godana waa o marka xarafkaasi a ama loo yaqaan alif baaba loo yaqaan alifku markuu ugu horeeyo halkaas lagu qorayaa marka ugu horeeyo saas loo qorayaa sida hadda aad ku aragtid baa loo qorayaa waxa kale ee ku xiga gooni baad ka dhigaysaa kuma dhajin kartid waxa ka mid yahay alifku kuwa waxba lagu dhajin karin alifka marka ugu horeysa sida kaligiisa u taagan yahay baa loo qorayaa kaligiiba meel taagaysa waxa kale ee ku xiga waa inaad gees kaga qortaa aanad ku dhajin okay markuu bartanka yahay alifku ugu dhaxeeyo xarafka dhinacan ka xiga waad ku dhajin kartaa xarafka dhankan ka xiga waad ku dhajin kartaa hadduu miim yahay miimka ku dhajinaysaa haddii uu
uu ta yahay ta'daad ku dhejinaysaa saasaad ugu dhejinaysaa haddii uu yacnihii uu yahay ha hadduu yahay halkaasaad ku dhejinaysaa laakiin xarafka dhankan ku xiga kuma dhejinaysid waa ka ilaalinaysaa gooni baad ka istaajinaysaa hadduu siin yahay hadduu miim yahay haddii nuun yahay waxaasoo dhan kuma dhegsamayo alifka markuu ugu dambeeyo xaggan waad ku dhejin kartaa markuu ugu dambeeyo dhankan waad ku dhejin kartaa laakiin waxaanad ku isagaaba ugu dambeeyo dee wax kale xaggan kama xigo xaggan laakiin waad ku dhejin kartaa oo wax walba caadi ugu dhegaya laakiin xaggan dambe dee waxaa isaga ugu dambeeya bal aynu eegno oo aynu tusaalahan hoose xagga hoose ka eegno aynu eegno alifka waa aragtaa marka ugu horeysa waxaa la qoray alif iyo siin iyo deel alifka saa markuu yahay alifka waxaa la yidhi goonidiisa ha loo qoro waa kan goonidiisa loo qoray sida kanoo kale loo qoray siinka iyo deelka waa la isku dhejiyey iyaga waa baran doonaa marka siinka iyo deelka la isku dhejinayo iyaga oo siinka markay tahay dhexda ku jiro ayaynu heli doonaa qaabka loo qoro laakiin waxaan anigu ka baranaynaa keliya alifka si loola dhaqmayo okay maanta waxaynu alifka waa ugu horeeya oo kaa markuu ugu horeeyo mar walba waxaa waajiba in gooni loo istaajiyo halkaasaa lagu qoro markuu ugu dhexeeyo xarafka waxaa la qoray markuu ugu dhexeeyo waa kan kaafka iyo alifkii iyo siinka saasaa loo qoray marka waxaa la eegay alifku waa ugu dhexeeya waa kaa alifku markuu ugu dhexeeyo haddaba qaabka loo qorayo wuxuu noqonayaa in ereyga mar walba dhankan ka xiga lagu dhejiyo kana lagu dhejinayaa laakiin kan xaggan ka xiga mar walba waa laga ilaalinaya laguma dhejin karo marka waa aragtaan kaafka iyo alifkii waa la isku dhejiyey alifku waa kacas ama guduudka waa aragtaan soo maaragtaan marka kaafkii oo sidan ah iyo alifkii baa lagu isku dhejinayaa siinka isaga gooni baa laga dhigayaa waayo sabab siinka gooni loogu dhigay sababtu waxa weeye alifku wuxuu ka mid yahay xuruuftii 6 ahayd ee aan dhankan wax lagaga dhejin karin marka mar walba dhankan wax lagama dhejin karo marka markuu ugu dhexeeyo waa qaabkan weeyaan marka dhankan waa mamnuuc xaraf walba ku xiga waan gooni laga istaajiyaa laakiin dhankan waad ku dhejin kartaa marka waka markuu ugu dambeeyana waxaynu arkaynaa in qaabkaas loo qorayo laakiin waxaa jirta dhankan waa lagaga dhejin karaa sababta ka dhigtay in aan lagu dhejin hadda oo inuu gooni istaago waxa weeyaan ra'da baa waxay ka mid tahay iyagana xuruuftii aan dhinaca wax lagaga dhejin jirin geeskan bay ka mid tahay marka mar walba oo ra'da ama alifka uu dhexda galo xuruuftii yacnihii aan waxba lagu dhejin karin ay dhexda galaan xarafka ku xiga gooni baa laga istaajinaya yacnihii waxaa loola dhaqmayaa sida hadda aad halkan ku aragtaan sida aynu halkan ku aragno sida aynu dhexdan ku aragno tusaale ahaan dhexdan oo kale waa loola dhaqmaya yacni dhexda waxaa ku jira xaraf kale oo sida alifkan dhexda ku jira oo kale diidan in wax lagu dhajiyo marka mar walba ay dhexda galaan xuruuftaas ay xarafka kale gooni baa laga istaajinayaa das waa hordhici hore. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.